אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע. cabsan waxaanu nahay muslimiin dhibaatana idiin geysan mayno waa orah uu yidhi askari ka tirsan dagaalyahanada xamaas qofta ka sheekaynaysa ee ay dhacdadani ku dhacdayna waa haweenay israa'iiliyad ah oo iyada oo gurigeeda joogta ay ciidamadani ugu soo galeen dhacdadan ayaa aad u qabsatay warbaahinta caalamka bannaankana u soo saartay qabdhaqanka la yaabka leh ee dagaalyahanada xamaas מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה. haweenaydan ayaa sheegtay in iyada oo joogta gurigeeda uu bilowday weerarka ay soo qaadeen xamaas kadibna carruurteeda oo huruday intay kicisay ayay sheegtay inay gelisay qol dhulka hoostiisa ku yaala oo ay gabad ahaan rabeen inay ugu dhuuntaan laakiin intaysan gelin qolka dagaalyahanno ka tirsan xamaas ayaa awood u yeeshay inay soo galaan gurigeedii iyada oo argagaxsan ayay sheegtay inay carruurteedii isku dhigtay kadib markii ay arkeen argagaxa ka muuqda ayaa mid ka mid a askartan ku yidhi isagoo ku hadlaya luqadda ingiriishka habaqin waxaan nahay muslimiin wax dhibaato ahna idiin geysan mayno waxay sheegtay in oraahdani ay argagaxii hayay ka yaraysay waxay fariisiiyeen iyada iyo carruurtii qol ka mida qoraalkii guriga waxayna uga tegeen askari waardiye ka qabta halka askartii kale ay guriga baaritaan ku bilaabeen waxay sheegtay in mid ka mid a askarta intii uu baaritaanka ku jiray uu arkay moos saaran miiska kadibna ku yidhi ma cuni karaa mooskan waxay sheegtay inay filinwaa ku noqotay askari hubaysan oo ku jira guriga qof uu cadow u arko haddana ka amar qaadanaya inuu shay yaalo gurigiisa cuno isaga oo awood u leh inuu iyadana dilo wax kasta oo guriga yaalana uu horay u sii qaato dabcan waxay tidhi intaan dhoola caddeeyey ayaan ku idhi waad cuni kartaa 2 saacadood ayay joogeen gurigeedii kadibna markii ay waxba ka waayeen ayay inta albaabka u sii riixeen ka tegeen waxay sheegtay inay ilaa hadda rumaysan la'dahay dhacdadan waxay sheegtay in markii ugu horeysay ee ay aragtay askartan waxa ugu horeeya ee maskaxdeeda ku soo dhacay ay ahayd inay dilayaan laakiin waxay sheegtay inay la kulantay dhacdadan filanwaaga ku noqotay bilowga dagaalkan hogaamiyaha sare ee ciidanka qasaam maxamed aldayf ayaa fariin uu u diray dagaalyahanada ku amray inaysan dhibaato u geysan dadka waayeelka ah dumarka iyo carruurta dagaalyahanada qasaam ayaana ka dhabeeyey amarka hogaamiyahooda sida ka muuqata dhacdadan sidoo kale TV-ga channel 12 ee laga leeyahay Israa'iil ayaa warbixin uu diyaariyey ku soo bandhigay darbiyo ku yaala gudaha magaalooyinkii ay ka dagaalameen dagaalyahanada Falastiin oo lagu xardhay oraahyo u dhignaa qasaam ma laayaan carruurta halka diyaaradaha gumaystuhu uu carruur iyo dumar kala soocayn har iyo habeenna duqaymo aan loo meeldayin ka geysanayo magaalada qasa muuqaalo laga baahiyey dagaalyahanada ururada iska caabinta Falastiin ayay ka soo muuqanayaan iyagoo leh waxaan fulinaynaa amarkii nabiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee ahaa inaanan ku dirin dagaalka dumar carruur waayeel iyo sidoo kaleba oday diimeed ayna bartilmaameedsadeen dileenna dagaalyahanadii hubaysnaa ee ay ishoodu qabatay muuqaalka haweenaydan iyo muuqaallo kale oo dhowr ah ayaa maalmihii u dambeeyey ahaa muuqaallo ay si badan u tabinayaan warbaahintu gaar ahaanna warbaahinta reer galbeedka oo lagu sawiray dagaalyahanada Falastiiniyiinta inay yihiin wuxuush aan dirnaxa lahayn